بسم الله والد loneliness waxa la yiraahdo ilmuhu markuu cidla dareemo waxay leedahay saameyn caafimaad oo khatar ah iyo saameyn mustaqbaleed xalna way leedahay ilmaha iskuulku markuu dhigto middle schoolka inta badan ay cidla dareemaan loneliness cidlada ay dareemayaan waxay khubarada caafimaadku yiraahdaan waxay la mid tahay iyagoo ilmahaasu ay cabayaan 15 sigaara maalinkii waad raadin kartaa daraasooyinka waan ku celin cidlo inuu qofku dareemo loneliness waxa la yiraahdaa waxay la mid tahay 15 xabo oo sigaara adoo maalin walba cabaya bal sanbabadaada waxa ku dhacaya fiiri caruurteenu khatartaasi ku jiri karaan saameyn mustaqbalkana way yeelan kartaa oo ilmaha lonely dareema cidlo dareema waxa ku adkaada mustaqbalka inuu sameeyo team project ama teamwork inuu koox la shaqeeyo waayo ma aha qof la shaqeyn jiray koox ee waa qof keligii taagnaa sidoo kale waxay cidla inay ilmuhu dareemaan keeni kartaa iskuulka marka la joogo in ay naftooda khatar geliyaan oo go'aamo khaldan ay qaataan oo kooxaha iskuulka ka jira ama isku kalaaska yihiin ama saaxiibada ah ay ku biiraan kuwa vape-ka cabaya ay ku biiraan si ay qayb uga noqdaan oo aan cidlo u dareemin kuwa dadka buliga ku sameeya ay ku biiraan si aan cidlo u dareemin ama kuwa maandooriyaha mararka qaarkood iskuulka ku dhex iibiya ay ku biiraan si aan cidlo u dareemin waayo ilmuhu markuu da'da middle schoolka joogo wali identity-giisa waxa ku socda formation maskaxdu wali way abuurmaysaa way dhismaysaa gooni iskuma taagi karaan haddii sidaa aad ku aragto ilmaha xalku muxuu noqon xalku wuxuu noqon ilmahan guriga markuu joogo family support inuu helo oo ah in ehel iyo qoys garab taagan ay helaan tusaale basiida waxaa ka mid ah waxaad geyn kartaa guryaha ilma adeeradood ilma abtiyadood saaxiibadood macaarifada ehelka iyo dadka Soomaaliyeed inay caruurta la ciyaaraan galabtii oo homework la sameeyaan oo guriga ka kaxayso iyaga u geyso waxay u kabaysaa oo u buuxinaysaa booskii banaana ee ilmahaasi iskuulka markuu joogay cidlada uu dareemayay walaaladii baad u geysay habaryar waxay dhashay eedda waxay dhashay adeer wuxuu dhalay ama Soomaalida ehelka ah ee macaarifada taasi waa qodobka labaad isku day inaad geyso meelaha la yiraahdo club activities mesela meelaha kubadda garoomaha lagu ciyaaro kubadda kooxaha inuu ku beero oo soo register garayso soo diiwaan geliso ama martial arts meelaha karatega lagu barto ilmahan marka wuxuu u baahan yahay markuu guriga yimaado si uu uga kabto